بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مدن gudoomiye waa mahadsantahay. xildhibaanada sharafta leh waxaa halkan u soo istaagay inaan idin mahad celiyo maanta oo ah maalin taariikhi ah sida gudoomiyena u sheegay. waa sharaf cusub oo u soo kordhay baarlamaanka tobanaad oo aad dhammaantiin amaba ka tihiin. sidaa la socotaan labadii kun ilaa iyo hadda Soomaaliya baarlamaanada laga soo dhisay, laakiin waa baarlamaanka ugu horreeyey dowladda shacabka oo ku dhiiraday oo u istaagay inuu maaragtay gobolka banaadir iyo dowladda jawhar ee xuquuqdooda inuu maaragtay uu ku dhawaaqo u dhaqaaqo. marka waxaan rabaa inaan mahad gaar u celiyo gudoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen oo runtii dadaal weyn ka muujiyey sidii loo dhegeysan lahaa doodihii faraha badnaa oo afartii maalmood soo dhaafay. waxaan ilaa inta aad baarlamaan ku jiray ma u malaynahay inaan arkay qadiyad 92 qofood ay ka hadashay oo 3 maalin laga hadlay. taas waxay tusinaysaa ama qof walba ay tusinaysaa ahmiyadda gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho ay u leedahay dadka Soomaaliyeed, dhinac walba ay yihiin iyo qabiil walba ay yihiin iyo kalar walba ay yihiin ahmiyadda ay leedahay iyo dareenka xildhibaan walba uu qabo oo meeshan joogo in xuquuq ay ka maqan gobolka banaadir sharafkeeda inuu qaato. ma u malaynayo inuu jiro xildhibaan diidanay ama kasoo horjeesta. waxaa laga yaabaa in siiqada ugu dambeysay aan isku xulqalaafay waaneen qaarkood, laakiin marna ma aan arkin xildhibaan dhahayo gobolka banaadir ma u arrintaas. marka waxaa laga yaabaa u mahad celiyo gudoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen siday u dadaaleen iyo daabkay siiyeen. waxaan kaloo rabaa u mahad celiyo guddiga kasoo shaqeeyey oo hogaaminaya walaalka ilaahiyow iyo inta socotay hore doorka qofood ahaa. anoo magaca gobolka banaadir iyo deegaanka dadka iyo qof walba ku hadlaayo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo, weliba haddii ay wax soo gaareen ama aajaafoon ay soo gaareen magacii dadkaas inaan uga cudur daarto oo loo raalli ahaa dadka ilaahay. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xukuumaddiisa xasan cali khayre oo wasiiradooda oo dhan si maaragtay hagal-la'aan oo sharaf leh ay u taageereen barnaamijka gobolka banaadir. ugu dambeyn waxaa rabaa inaan u mahad celiyo duubabka iyo culummada iyo dadka Soomaaliyeed oo saacad walba la siinayo talo iyo tusaale iyo waxyaabaha ku habboon gobolka banaadir in maaragtay la marsiiyo. iyo ruux walba oo Soomaali ah oo aan joogin goobtaan ama ka maqnay oo taladiisa iyo tusaalihiisa loo soo sheegayay mar walba loo tilmaamay. walaalayaal waxaa ogtihiin inaan ku jirno usbuucii oobaad xorriyadda Soomaaliya ku jirno dabaaldeg fara badan u dhacayo maalin walba oo loo dabaaldegaayo Soomaaliya taariikhda waqtiga ay xorriyadda qaadatay. laakiin waxaan rabnaa 30 sano kadib dadka Soomaaliyeed ama 60 sano kadib dadka Soomaaliyeed waxay u dabaaldegi lahayn inaan maanta annaga aan fannaa inaan beernaa rabnaa inaan ka tagnaa rabnaa qabiil hebel iyo qabiil hebel iyo qabiil hebel oo shacabka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed aan gaarsiino inay degmadooda gobolkooda rijigooda dadka xukumaaya ay soo doortaan si xorriyad u soo doortaan oo ay Soomaaliya ka baxdo waxaa la yidhaahdo qabiila wax lagu qaybsanaa maamullaha inta wax ku talinaya shacabka ay wadaad ku talinaya inaan gaarsiinaa rabnaa haddii ilaahay subxaana aqoonsiga maanta aan aqoonsanay oo annaga aan bilaabay walaha shacabka uu bilaabay uu ku dhawaaqay waa bilow aad u fiican, laakiin ma aha masaafada ugu dambaysa oo dadka xuquuqda gobolka banaadir ka maqan ismi lahay. waxaan u baahanahay inaan ka shaqeyno boqolkiiba 10 aan maanta ka gelin ama 20 aan ka gelin 80 maqan inaan maanta u istaagno oo ka shaqeyno sidaan u soo celin lahayn haddii ilaahay raalli ka noqdo. golaha shacabka oo maanta annaga aan taariikhda meesha aragteen aan ka galeen waxaan rabaa intuusan dhammaanin taariikhda aan meel ka galno gobolka banaadir inuu maamul goboleed madaxa bannaan
oo xor ah sida dowladda jarmalka waddan magaalada barin u dheeraan maamul goboleed u gaara inaan ku dadaabano oo ahirkeeda haddii ilaahay ka noqo بالله تعالى وعن رأينا نفسه بعد القرآن وما هو نتكلم عن شيء الصدور لنا واضح جدا ما تبرر معكم الصدور وين وعن كلام لهم وأنت جوتوا أولا أنت ما قلنا عن سنة الاستثمار التغيير وعلى هذا الصدور منها وعن طبعا صومالي المصير كان طبيعي أنا معمول أنا عن نتكلم بإذن الله تعالى وحاولنا مع الخدمات السكنية وحاولنا مع إنترنت تكتشفت هكذا وتلقى وأنا أستطيع السلام عليكم ورحمة الله سنتين وحاولنا بين حقا وحن وصل يبدو ما بنات الغرفين ده وعن ربائنا المعاقل بشر وجه جبالتك وراء جيبوتي وأما أنت حرمة إدارتك مجالات المجتمع وقت تاريخ